soo dhawaada saaxiibayaal. Waa qaybtii labaad, qaybtii koowaad aan soo gelinayay isbuuc ka hor. Waan ka xumay walaal inaan kala soo daxo maxaa yeelay aad baan u mashquulsan. Waxaan ahaa safar, waa dareemi kartaa qofka safarta ah mashquulkiisa. Si kastoo ahaataba saaxiib raali noqo oo ku raaxayso qaybtan labaad ee daawata qaybteedii koowaad. Waxaan saaranahay wadada 30 ee saaxiib nagu soo biir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Anigu waxaan ahay King Solfur, waxaad iga daawanaysaan King Solfur Pro. King Solver Pro. waayahay asxaabtayda qaaliga ah, isku soo noqosho wanaagsan. In qaab dheer kadib Luz dhaawaca garka hoosta kaga yaala waxa uu fahmayaa inuu yahay dhaawac ka soo gaaray ciqaabta qof walbana uu leeyahay. Frank ayaa waxa uu ku beeriyaa gruubka wada tashiga ay waalidiinta ilmahooda dhigtaan macadka simka. Frank ayaa waxa uu sheegaya waalidiinta in wiilkiisu aad u dhib badnaa, dabeecad qalafsan u lahaa, haddana uu dareemayo in wiilkiisu soo roonanayo. Sidoo kale Ernesto oo halka ku heliyaan gabadhiisa Sandra iyo sidoo kale xaaskiisa Luz ayaa wax waalidiinta kale u sheegaya gabadhiisa Sandra in 20 bilood ka hor uu ka soo saaray macadka simka. Dabeecaddeeduna aad u wanaagsaneyd, balse 20 bil kadib waxay noqotay qof aad isaga fikiraya, maskaxdana ka xanuunsan. Taa waxa ay ku dhalisay waalidiinta kale in maxadkan wax uun ka qaldan yihiin, ilmahoodana aysan ku aamini karin. Taa waxay cabsi weyn ku dhalinaysaa Frank oo isagu laftirkiisu dareemay walwal. Frank ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameynaya wiilkiisa markii hore iyo hadda sida uu yahay. Wuxuu arkayaa markii hore wiilkiisuna aad u faraxsanaa, haddana is warba ka hayn. Wuxuu go'aansanayaa Frank inuu soo aado macadka. Frank ayaa la kulmaya maamulaha macadka, laakiin waxaa loo sheegay inuusan arki karin wiilkiisa maadaama uu qalad geystay isla markaana la ciqaabayo ciqaab ku socoto. Waxaa la tusinayaa muuqaalkii markii la ciqaabayo uu geystay wiilkiisa. Aad ayuu ula yaabayaa in wiilkiisa dabeecaddiisii ay halkaa kasii dartay, aad u xumaatay. Maamulaha ayaa waxaa lagu wargelinayaa dhalinyaradan in aysan si fiican ula socon muuqaal tababar ahaa ee kaga socday dhalada, balse ay iska qoslayaan. Maamulaha ayaa markaa waxa uu go'aansanayaa ciqaabtii ugu xumayd inuu ciqaabo dhalinyaradan. Waxaa la dhexgelinayaa dhalo, indhaha laga xirayaa, dharkan waa laga saarayaa. Waxay taagnaanayaan muddo 3 maalmood ah. Sidoo kale gacmaha waxaa lagu xirayaa gadaal. Qofkii dhaca oo dul qaadan waaya istaaga ka dhaca waxaa laga saarayaa ciyaarta, dib ayaana lagu soo bilaabayaa maalintii koowaad ee istaaga. Qofka ugu dambeeya soo harana wuxuu noqon doonaa guuleystaha ciyaartan aadka u waalan, laakiin aad bay u daalayaan. Qof walbana waxa uu bilaabayaa in uu dhaco, xataa qaar baa suuxaya. Habeenkii aad bay u daran tahay maxaa yeelay ma jiro wax ka difaacaya qabowga. Haddii loo keeno cunno, waxaa la fiirinayaa qof walba sida uu u cunayo ama uu ula qaybsanayo saaxiibadii cunadan. Qofkii awoodi waaya inuu saaxiibadii la qaybsado waxaa laga saarayaa ciyaarta, waxaana loo soo bilaabayaa maalintii koowaad ee ciqaabta. Andho ayaa wuxuu sakadiisa ku arkayaa gabadha psychologistaha ahayd inay muuqaal ka duubayso ciqaabta loo geysanayo raggan. Maamulaha simka ayaa waxa uu ogaanayaa gabadhan psychologistaha ah inay doonaysay in ay ceebeysato simka, maadaama ay muuqaalkan doonaysay inay u busto garayso dhammaan dunida dacaladeeda. Ugu dambeyn waxaa ciqaabta ciyaartii waalid ku guuleysanayaa ninkii Luz ahaa. Waxaa u hambalyeynaya Master Nando. Frank ayaa waxay isbareen single mother ka mid ah waalidiinta ay dhalinyarada ugu jiraan simka. Aad ayayna isugu soo dhawaanayaan, laakiin waxa uu la daala dhacayaa dacwad ka dhana Luz hooyadii, maadaama simka uu geeyay isaga oo aan la tashan iyada. Laakiin isaga wuxuu ku dacwoonayaa gabadhan in aysan la korin wiilkiisa maadaama ay kala tageen. Frank ayaa dacwada kadib aad ay isugu soo dhawaanayaan gabadhan iyadoo ilmaheedu ku jiraan simka. Gabadhii Sandra ahayd waxay kombiyuutarka aabaheed ka daawanaysaa muuqaalo ay simka usoo direen aabaheed, kuwaasoo ka muuqdeen jirdil loo geysanayo dhalinyaradan. Taas waxay ku abuuraysaa cabsi, waxayna iska tuuraysaa dabaqa. Simka ayaa waxay dacwad kaga imaanaysaa dowladda, halkaan waxaa kormeer ku sameynaya maxkamad ka mid ah dowladda. Laakiin maamulaha simka ayaa halkaas waxa uu ka laabanlaabayaa ciqaabta uu geysanayo dhalinyaradan aadka u qallafsan. Hataa haddii mid ka mid ah matago, waxaa sharciga ku dhigaya in gacmihiisa uu ku aruurayo mataga isaga ahi. Luz ayaa is hor istaagaya maamulaha, laakiin waxaa looga badalayaa in lagu ciqaabo ciqaab ka mid ah ciqaabaha ugu dardaran. Luz ayaa waxa uu ka dhaxlayaa ciqaabtan cabsi tiro badan iyo inay maskaxdiisu qabato sawirro hore. Taana waxa uu ka dhaxlayaa inuu gabi ahaanba hadli waayo
juuqdiiba gabo. Waxaa loo keenaya hal ay ku dhaansa garanayaan gabdho iyo wiilal si uu wax uun ugu fahmo ama hadalkiisa u soo noqdo. Laakiin dhalinyaradii ayaa asaga ku dayanaya ilaa ay qaar ka mid ah dhalinyaradii istaagaan oo ay sameeyaan sida asaga uu sameynayo. Taa waxaa aad uga caroonaya maamulihii oo uu garaacaya qof walba oo sameeya sida isaga uu sameynayo. Frank ayaa wuxuu kasoo qayb galaya xaflad ay lahaayeen waalidiinta, laakiin Frank aad buu u caroonayaa wuuna kasoo tagaya xafladan marka uu ogaado in gabadha yarada Sandra ahayd ay u geeriyootay dib kasoo gaaray simka. Frank ayaa wuxuu soo raadinaya hooyada dhashay gabadha dhimatay ahna saaxiibtiisa dhow ee hadda. Wuxuu u dejinayaa niyadda wuxuuna u sheegaya in isagu uu yahay iyadoo garabkeeda, isla markaasna wiilkiisa xataa uu kasoo saarayo simka. Wuxuu soo saaraya wiilkiisa, laakiin waa wiil aamusan, hadlayn, dabeecadihii dhan ay ka bedelmeen. Frank oo aad u walwalsan wiilkiisa ayaa wuxuu u keenayaa guriga Luz. Sida markuu guriga u imaado markiiba waxaa wacaya saaxiibadii si ay u caawiso. Frank ayaa wuxuu isku dayaa wiilkiisa inuu la sameeyo xiriir dhow oo ka bedelo dabeecaddan aamusnaanta ah, laakiin maba hadlayaba ninkii Luz ah. Luz ayaa sharaxaadda gurigiisii hore bedelaya maadaama uu noqday qof cusub. Laakiin Frank ayaa aad ugu farxaya maadaama wiilkiisa uu ka tagay cabitaanka khamriga iyo wax la midka ah. Waxa uu keenaya hadiyad, laakiin wuxuu u soo celinayaa tii markii hore uu keenayay markii uu joogay xabsiga. Iska badaa inuu tan cusub ka qaatay. Luz markii ugu horreysay u hadla wuxuu aabihii u sheegayaa, aabe waad ku qaldanimada inaad geyso simka. Laakiin Frank ayaa wuxuu u sheegayaa sababta ku qasabta wiilkiisa inuu geeyo halkaa. Wuxuu leeyahay, aabe aniga aad baan kuu jecelahay, waxaan kusoo koriyay anigoo ah single father. Hooyada waxay kaa tagtay kadib markii ay ku dhashay, marka ayaana kuuga dambeysay. Aniga ayaa kusoo barbaariyay, wax walbana aniga ayaa kuu qabtay, laakiin adiga waxaad noqotay qof aniga barbaarinta jacaylkan siinaya u fahmay in uu noqdo qof markaa iyada isagu doonayo sameeyo wax uu rabo. Laakiin aniga waan u dulqaadan waayay dabeecadahaada maadaama aad noqoto qof kaliya yeeshay saaxiibo aad u xunxun, khamriga iyo kalaabkana ka dhigtay wehelkiisa ugu dhow. Kadib Frank wuxuu soo aadayaa xaaskiisii hore ahna hooyada dhashay Luz maadaama ay haysay warqado ka mid ah warqadaha dacwada ee u dhexeeyay isaga iyada. Laakiin Luz kama dagayo hataa gaariga maadaama uu aad ugu cadhaysnaa hooyadii. Frank ayaa wuxuu awood u inuu gaariga sii kaxeeyo, wuxuu ka dagayaa gaariga. Laakiin Luz ayaa raaligelinaya aabihii maadaama uu ogaaday in uu waddo qaldan ku socday. Halkan waxaa ka bilaabanaya isfahan iyo jacayl ka dhexeeya wiilkan iyo aabihii.